oo waliba qofka marka laga soo galo dhinaca caadifada diintaana waa dhib badanta tii hore oo dhaqanka way ka adkaysteen laakiin runtii middan diimaysan oo dadka lagu marin habaabinayo cadawga ugu weyn oo hadda Soomaali leedahay waa kaas dadkan xaq jirka ah oo dadkii hore xataa dagaalka wuxuu u rabo qab iyo qabiil iyo maroorsi iyo xalba hayde kuwaan aan waasifeen waxa ay rabaan ilaa hadda ma garan aan ahayn inay ummad jirta baabiyaan kaliya iyo waxay u adeegayaan aad looma fahmi karo marka kuwaas u baahan in meel looga soo wada jeesto oo runtii u malayn maayo kuwaas haddaysan dabcan dadka la khalday ka hadli maayo oo dhalinyarada ah nabad waan ugu baaqaynaa laakiin dadka fikirka ka dambeeya dad nabad u socdo uma eka dabcan nabaddana waa la ammaanay sulxa waxa xadgudbana in xadka laga jaro ilaahay uu amray ruuxadda marka wixii xadgudba ruuxadiisa in xadka lagu qabto oo gacan adag lagu qabto iyaduna ma diidayso deganaanshahay qayb ka mid tahay laakiin xalka koowaad mar walba ma aha xalka koowaad waa nabad iyo wada hadal wixii ka dambeeyana waa sidoo kaleeto Soomaaliya xaaladda ay ku jirto waxaan ogsoonahay dib u heshiisiino fara badan baa la qabtay waxa kaliya ee aan isleeyahay waa u najixi laadahay laba arrimood mar daacad lagama ahamaan marna si dhab ah looma guda galaayo meel saraa baa la raacay haddaan dadku xaqiiqada uusan ka warramin oo gudaha u gelin waa adkaanaysaa inuu ka gungaaro waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo wax naga dhexeeyaan nabad iyo dib u heshiisiin iyo garnaqsi xaqiiqo ah fariinta ugu horeysa waxaan u dirayaa Somaliland dhulka Puntland shaarkaaga waa lagu qabsan karaa ay hadda ku xadgudubsan tahay wada hadal iyo nabad inaan ku dhamayno oo ay ku garnaqsadaan baan ugu baaqaynaa waxaan diyaar ugu nahay wax hadda mugdi ku jira ma aha laakiin inaan wada hadal dhab ah oo nabad waarta ka dhalaya geyiga in laga gaaro diyaar baan u nahay message-keena koowaad waa kaas wax kasta oo Puntland ka xun waxaan ku raadinaynaa nabad Soomaalida inteeda kale waxaan ugu baaqaynaa deegaanada weli shidooyin ka jiraan inaan dagaal waxba lagu xallin karin nabad iyagana ay ku xalliyaan nabadda iyo dawlad dhisku waa kala duwan yihiin marka dadka Soomaaliyeed haddii maanta dhashir loo qabto qabaa'ilkooda waxba iskama hayaan oo hadda qabaa'ilka Somaliland deegaanada Puntland ahayn iyo annagu maalin walba isdhex marayna waa ehel iyo qaraaba leeyahay laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiin siyaasadeed oo sax ah oo garnaqsanaysa la rabaa siyaasadda Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay si dhab ah u abaarto inay ka wada shaqeeyaan deganaan si loo helo horumar oo dadka loogu adeego wax kasta oo intaa ka soo hara waxay abuurayaan calow iyo iska daba wareeg iyo jahwareer iyo xaalad murugsan oo aan xal laga gaarin intaasba ummadeenna dan uguma jirto marka reer Puntland hadda iyo hadhow iyo bariba mar walba message-kooda koowaad waa inuu noqdaa nabad Soomaalinimo midnimo ururin wixii intaa garan waayana weli waa u dhibrinaynaa dagaal ku baahimayno laakiin iyaduna haddii qofka uu garan waayo wixii waajib ah oo dadkaas ay ku leeyihiin oo dawladnimadu farayso waa ay qaadayaan haddii ilaahay buuggan waxaan ku boorinayaa dadka inay akhriyaan akhrin kaliya maahan inay daraaseeyaan baan ugu daraya maadaama muddo dheer cilmi baaris u ahaa buugaagtu waa kala duwantaba buugaagta cilmiga inkastoo ay dhici karto dadka qaybtiisa inay ku adkaato luqadda lagu qoray
oo aniga inaan ka mid ah dhici karto kuwo badan baa iga baxsaday ya marka waxay la tahay iyadana erebixin haddii la waayo hadda wacadka haddaan dee qawaci waayana cabaas iyo waxaan wacaya dadka suugaanta yaqaan kelmaddii ugu adkaato waa la fasiri karaa inkastoo kelmado badan oo asalkooda carabiga uu ka buuxay luqadda soomaaliga oo runtii aan filayo laakiin sida la isu saaray runtii waxay ahayd si aad u mug weyn meeshaan hadal badan kama furna deeqa noo gebagabaystay taladeedina waa qaadan inaan nabadda ka shaqayno waana rajaynaynaa insha allah dal doon oo xasilan inuu Soomaaliya noqdo oo wixii tagay in laga go'aantoobana waa rajaynaa